horta inay afhayeen oo noqdaan heer iyaguba qaawan aakhira iyo adduun baa waxba ka ogeen qolal baa la soo fuulahayaa arrintan war ciidamadii muuse gumcalle goormay noqdeen iyo liyu boolis war waxaan laga camanhayo laga qaylihayo ma qabiilka yarkee muuse gumcalle la yidhaahdaa waxaanay harti oo idin nimankii mareexaanka ahaa iyo soomaali oo idin iyo hadalka oo cad baan anigu idiin sheegayaa waxaan dagaalamayo hal liyu boolis had ka hadlaysaa anoo maba naqaano liyu booliska meesha ka hadlaysaan war meeshan waxaa jooga waa ciidankii muuse gumcalle state of ogaadeen iyo niyow ninkii diid iyo ninkii yeeliyow haddii aad hadal ku caawinaysaan walaalayaal bal soo baxa muuse hubka meesha ciidanka fasaxa numa qali jirne bal harti iyo mareexaanow waxaas la haysaan bal soo fasaxa ilmaada riyaalow hadday cabasho jirto oo dowladda muuse gumcalle aad ka camanaysaan una caawinaysaan dowlad kale oo niman kale oo ogaadeena inaad ayadu laftirkeeda waanu soo dhaweynaynaa anagu wax ma diidayna aad iyo aad laakiin kolba inaad soo furtaan waxaa isdagaala waryaar ma ninka ugaaska guud ee mareexaan baan been sheegayo waryaar ma odayaasha mareexaan baan been sheegayo waryaar hadalka uu leeyahay maxay tahay ninkan la yiraahdo nimankan mareexaan odayaasha garasliya meelaha ka soo qaxay waxay afkooda ku leeyihiin dowlad waxaanu codsanaynaa dowladda Mustafa Cagjar iyo xukuumaddiisa inay noo soo gurmadaan waxa laga gurmay marka ma dowladda waxa noogu sheekanaysan fiiri ilaahay baan idigu dhaarshay bal noo sheega maxay saa u dhii oo oranayaan waxay leeyihiin muuse gumcalle duulaan nagu soo ah shilaabo iyo deegaanadaas oo dhabaanu wada deganaan jirnay yes way jirtay laakiin meeshan waxa dagaalamayo waa only muuse gumcalle niyow hadday isahaystaan mareexaan iyo maxaa la yiraahdaa bahal liyu boolis waa iyaga u talaana wax noo talama laakiin dagaalkan hadda jiro inaad ciidanka muuse gumcalle haata ismaaciil gumcalle nafran kaga jirinayo ana rubtiidii sheegay waxaan kaga jirin Ibrahim iyo gumcallayaasha kale kaga jirin wargacan weynana kaga jirin Soomaali markii la yiraahdo liyu booliska aad ka qaylaysaaniyo annaga ka hub badan oo reer ah annagana ka sanaad badan niyo annagana kaga tababar fiican xuduudeennadana liyu boolis korbaniyo qarni la dagaalami jiray xagee jirtaan waaya markaas liyu boolis dhowrsan koor baa la sameeyay waxaanu dagaalami jirnay abto abniyo deegaanka ilaahay annaga nagu wada beeray marka liyu boolis markaa jiray no waxaan ilmaada reeraas hartiyow idinka baan inaad reero qaawan dagaal dad walaalo isdagaalayeen inaad dhibic ka raadisan idinkay gudnimo idigu taaniyo ana waxa dhilahay idinka qaaqaawna dadkiin intaad gashataan meeshii intaad iskaga yaacdaan walaalayaal moodka iska galo de meeshana ma aha meeshii sagaalka bilood lagu jiray gooja cado kala ma aha waa meel niman indha gudguududin oo makaahila oo gumcalla oo muuse gumcalla ay joogaan haddii aad u baahan tihiin sida Salamadow iyo qabiladan kale Saacadiyo noo soo sheegay anaga idin soo gurmadeenay laba guuto oo gumcallayaasha la idin soo diri waana la idin soo ku fiirsan sultan inta saakidka laakiin ciidankan cid bila aadar been ka sheegay ma jirto liyu boolisna kama jiro niyow waxa meesha dagaalamay waa laba reer waa mareexaan iyo muuse gumcalle ninkii mareexaan u heelanayo inaad way ku furanta xataa ogaadeen kale hubka qaataan ha u heeliyaan laakiin meeshan xiriyaan ku joognaaniyo weligeena aanu ku joogi jirnay liyu booliska waxa sheegaysan ma naqaano shalay bay ahayd 6 bilood ka hor bay liyu boolis iyo ciidamada muuse gumcalle markay dagaalamayeen amuudka kala waxa khaldantay jikoy soo kabiyada wada sugayaan maxaa khaldan ortaaniyo ma naacabanayno sida raggi baan iskaga celinay haddaad ka cabaadaysaan oo raasanaysaan ilmaha raasay laakiin quwwadan iyo xaqa muuse gumcalle hartiyo haddaad wax qabanaysaan niyo xoreen waxa idiga baahan ceeri gaabo xoreen waxa idiga baahan gaalkacay oo bari tubadhaniyo marka dadka iska soo xoreysaan muuse gumcalle waxaad u haysan soo daayeen niyo idinka dabadina qaabta salaamaya way barta kaaga soo dhacday mareexaan afa qorana qabiil lama aanan hadlin waxa weeye nimankaan tolka nahay waan canaan iyo eedda kala ka saaran annagoo leh war dawladii idinka hogaaminaya wax allaala wixii halka ka dhaca ee dhibaato idinka mas'uuliyaddeeda qaadaya ninalkaana waxaa noo yimi gumcallaynaya oo ogaadeynaya oo karkarsan warna adeer ama karkar ama kulayl noqo ama qabow noqo annagu xaqiiqdaanu ku sheegaynaa tal waxaa lagu wada yahay in runta la isu sheego haddaan khaldanahay in runta la ii sheego haddii aad khaldan tahayna in runta lagu sheego anigu kollayna gumeed meeyii laba reeroo
wada dhashay oo abtirsiimo wada siman inaan dhiigooda iyo waxa weeye ku farxo ama aan soo dhaweeyo warnaadeen gunimay ugu tahay midda kale ninkaaga waxa weeye hanjabayo warwarigeedba waa la isdili jiray ma jifi aan jifi qalinin baa nagu jirta waa maya يوم هذا حكورن ما يو هذا هذا يقول لما أرى يوم هذا كوش شجنا وحلي هذا هاي هو بورصة صفورة يسا بس يعلم بورصة أوفول ورنا غنيو مصلحة هي النبضون نملا وإحنا جاي دنينا نلعنو حقا نولنا لكن ندون كلها حقوق اللي يوم هنشي أما وحولي بورها فوق haddii meeshaasi wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna maxay ku dhaceen lama yiraahdo wixii dambe halkaa ka soo cusboonaada haddii dowladda Mustafa Cagjar uu hogaaminayo uusan xal u keenin eedo ayaday qabanaysaa ismaamulka Soomaali galbeed buuna qabanayaa wayna ku khasban tahay xal kale وحبض اللوجا باكسن كرو إلا هلو أما جمع الله يلا يسود دلان أما كرتما يسوق خبصان أما بلايا كلا يسود يسود مرة با شيء أبو قباريزو وحكومة مصطفى عجر وحينو قباريزو وحكرا ما هاي دولة اسمها الصومالي قلبي حال خلق وأنا حبض عين هل الراديو يسارور قراد